23 qof ayaa ku dhintay muddo 2 toddobaad oo ay banaanbaxyadu ka socdeen dalka India kadib markii baarlamaanka waddankaasi meel mariyay wax ka bedel lagu sameeyay xeerka jinsiyadaha dalka India oo u muuqdo mid lagu maquuninayo dadka muslimiinta ah. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa qabtay kulan ballaaran oo ay iskugu soo baxeen xisbigiisa u ololeeya xoojinta dadka Hinduuga ah ee lagu magacaabo BJP. Isku soo baxaasi oo ay ku taageerayeen go'aanka baarlamaanka ee ay soo saartay dowladda in ay dadkaasi raali ka yihiin. wax ka bedelka lagu sameeyay sharciga jinsiyadaha dalka India ayaa ogolaanaya in dadka Hinduuga ah, Kirishtanka iyo diimaha kale ee laga tiro badan yahay ee ku hoos nool wadamada aqlabiyadooda muslimiinta ay tahay sida Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan la siin karo sharciga dalka India haddii maxkamada cadeyso in diintooda darteed lagu takooray. Ra'iisul wasaaraha hadda xukunka haya Mr. Modi ayaa sanadkii 2002 mar uu gudoomiye ka ahaa gobolka Gujarat waxaa lagu dilay in ka badan 1,000 qof oo muslimiin u badan xilli xiisada ay ka taagneyd gobolkaasi. Banaanbaxyada hadda ayay bilaabeen ardayda jaamacadaha wax ka dhigta ee muslimiinta ah iyaga oo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan wax ka bedelka xeerka dhalashada dalka India. madaxweynaha xilka haya ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa mar kale ku guuleystay 5 sanadood oo xilka wadankaasi sii haynayo kadib markii guddiga doorashooyinka wadankaasi Axaddii shalay ay soo saareen natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtinimada. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi ayaa Axaddii shalay kaga dhawaaqday magaalada Kabul natiijada hordhaca ah oo muujinaysa in Mr. Ghani uu ku guuleystay 51% oo noqonaya ku dhawaad 2 milyan oo codadkii la dhiibtay. Xawa Alam Nuristani oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa intaasi ku dartay in ninka sida weyn ula loolamayay Ashraf Ghani ee Cabdalla uu helay 9% codadka tirada yar ee soo hadhayna ay kala qaybsanayaan musharaxiinta kale ee tartanka ka qayb galay. Ashraf Ghani iyo Cabdalla ayaa horena si adag ugu hirdamay doorashada Afghanistan halkaasi oo ay keentay in markii dambe laga dhigo madaxa fulinta ee xafiiska madaxtooyada. doorashadii dalkaasi ka qabsoontay bishii Sebtembar 28 ayaa muran badan ka dhalisay wadankaasi. guddiga doorashooyinku waxay ku tala galeen inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada 19 bishii Oktoobar ee dhaaftay, hase ahaatee waxa hor istaagay in natiijada la soo saaro musharaxiin horkacaya Cabdalla oo dalbaday in si fiican loo hubiyo musuqmaasuq iyo xisaab mareen ay ka shakisanaayeen. madaxweyne Ghani ayaa ka hadlay telefishinka wadankaasi isagoo u mahad celiyay guddiga doorashooyinka iyo dadweynaha wadanka Afghanistan qaar ahaan ciidamada ammaanka oo uu sheegay inay nabadgelyada sugeen isla markaana ay si adag u ilaaliyeen goobaha ay yaaleen sanaaduuqda codbixintu muddadii uu socday muranku isla markaana dib loo tirinayay codadka doorashada. laba waalid oo Soomaali ah oo in muddo ahba ku jira xabsi ku yaala magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa maalintii Jimcihii maxkamad la soo taagay iyaga oo ku eedeysan in ay gudeen gabar yar oo 2 sano jir ah oo ay dhaleen kadibna caabuq uu ku yimid meeshii gabadha laga gooyay darteed ay isbitaal geeyeen sidaana lagu ogaaday sida lagu soo eedeynaya in gabadhan yar ay gudeen waalidkeedu. maxkamadda ayaa ilaa dhamaadka bisha soo socota dib u dhigtay xukunka labadan waalid waxaana caruurtii si ku meel gaar ah loogu dhiibay dad ay qaraabo yihiin. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa. dacwadda ka dhanka labada waalid ee Soomaalida ayaa soo bilaabantay sanadkii 2016 xilligaasi oo ay cusbitaal geeyeen gabar yar oo ay dhaleen oo xataa aanay da'deedu buuxin 2 sano. ilmaha yar ayaa la sheegay in caabuq iyo nabar uu kaga yaalay xubinta taranka, taasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in ilmaha yar la guday halka ay waalidkuna ku doodayeen inay kuftay amaba ay ku dul dhacday qalabka ay ku ciyaaraysay sidaana nabarku ku soo gaadhay. dacwadda qoyskan ayaa markiiba u gudubtay booliska iyo maxkamadda waxaana muddo dheer lagu jiray baaritaanka iyo xaqiijinta waxa sababay nabarka ku yaala inanta yar. Cabdicasiis Muuse oo ka
ka mida Soomaalida ku dhaqan Ireland isla markaana culumta sharciga ka dhigta jaamacadda ku taala Dublin ee dalka Ireland ayaa arrinta qoyskan si dhow ula socday waxaanu iiga waramay xilliga la soo xiray labada waalid ee ay maxkamaddu ku heshay dacwadda lagu eedeeyay. waalidku imika muddo ilaa 4 weega ku dhow way xiran yihiin sababta loo xiray waxa weeye markii xukunka lagu helay maxkamadda Dublin ay ku heshay ayaa ay boolisku ku doodeen in haddii biil lagu sii daayo inay baxsan karaan kiiskuna maadaama uu yahay kiis serious ah oo muxuu ahaa laga yaabo xukunka FGM-ku waxa ay sharciga FGM-ka u yaalla ee 2012 dowladda Irishku ansixisay wuxuu tilmaamayaa in ugu yaraan 10 sano ilaa iyo 14 sano ugu badnaan uu qofku wajihi karo xarig haddii uu isku dayo gudniin fircooniga ama ku cadaadaba. marka sababaha awgeed ayay boolisku ay yiraahdeen way baxsan karaan sababahaasaan ku haysanaa bay leeyihiin ku xiran yihiin xukunkana 20 bishay u muddaysnayd laakiin waxay ka dhigeen uu sidoo xakunku sheegay 20 bishan in ay dib ugu dhigeen 27 sanadka dambe January. gabadha yar ee la sheegay in la guday ayay haatan da'deedu tahay 5 jir iyada iyo walaalaheedna waxa si ku meel gaar ah u sii haya qoys ay qaraabo yihiin. waxay dhaleen 3 caruur oo waxay haysataa ilmo yar oo 12 bilood jira. ilmahan lagu haysto gudniinka lagu sameeyay waa 5 sano iyo ilmo yar 3 jira. marka caruurta waxa haya gabadh ay isku yihiin family marka taas laakiin go'aanka marka maxkamaddu go'aan gaadho cid ay u dhiibi doonto iyo waxa ay samayn doonto lama ogaan karo. Cabdicasiis Muuse ayaan weydiiyey in qoyskan damiin lacageed lagu sii dayn karo muddada dib loo dhigay dacwadooda kama dambaysta ah. sida sharcigu dhigayo kiisaska noocan oo kala ah waxa ogolaan kara in biil lagu sii daayo xaakinka laakiin way diideen oo waxay yidhahdeen laguma sii dayn karo sababo la xidhiidha maadaama ay baxsan karaan bay yidhaahdeen oo ay waddanka dhoofi karaan sidaa awgeed way diideen in lagu sii daayo damiin iyo lacag midna. waalidku miyaanay haysan qareenno muujin kara dacwadooda iyagu siday u doodayaan oo ah inanta yar waxyaaba ay ku ciyaaraysay inay mudeen oo nabarku sidaa ugu dhacay ee aananta yar la gudin? way leeyihiin way haystaan garyaqaano oo u dooda laakiin dee waata sababtay in maxkamadii Irishku ay ku hesho dambiga marka ilaa go'aan laga gaaro oo la xukumo looyaradu ma ogaan karaan inay kiiska abiil ka qaadan karaan iyo in kale marka waxay sugayaan looyaradu inta badan say noo sheegeen in go'aanka xaakinka. inkasta oo qoyskan xabsiga loo taxaabay ay haysteen qareenno iyo sharci yaqaano u doodaya hase ahaatee ururada caalamiga iyo kuwa waddankaasi ka jira xuquuqda aadamaha ka hadla ayaa ka gaabsaday inay arrintooda farageliyaan waalidkan xidhan iyaga oo aan xukunkii kama dambaysta ahaa lagu ridin. arrintani horta waa si cajiiba Sahraay waxa weeye horta dee waa dembi waddankan oo sharciba ka yaala in gudniinka fircooniga ah in la iyo wixii waliba taageerada marka human right iyo cid kale oo ka hadli kartaaba arrintan way adag tahay ubad yaryar ama dad ama qof bini'aadmiyaba dee jirkiisa la googooyo waa wax laga soo horjeedo. dowladda waddanka Ireland ayaa sharci adag ka soo saartay gudniinka fircooniga ah iyadoo xabsi aad u dheer lagu xukumayo cid kasta oo lagu tuhmo inay farsamada ku shaqaysato amaba ay ubadkooda ku samayso. waxaana la sheegay in baadhitaano xoogan lagu sameeyo gabdhaha yaryar marka la geeyo cusbitaalada ilaa marka ay dugsiyada waxbarasho dhiganayaan si loo xaqiijiyo in marun lagu sameeyey gudniinka. hase ahaatee qoyskan Soomaalida ah ayaa noqday waalidkii ugu horreeyey ee xabsiga loo taxaabo fal la xidhiidha gudniinka waddanka Ireland. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday nalana socodsiinaysay halka aad kala socotaana waa VOA Washington.